su-aasha isweydiinta le markaa ma aha nebi maxamed weynayntiisa kama hadlayno qofka muslimkaee ka doodana uu ku gaaloobaya waadix soo taasi maaha qofka muslimka ee nebi maxamed weynayntiisa ka dood geliya uu ku gaaloobaya waa maxay markaa cilladu xaggee ka jirtaa cilladu waxay ka jirtaa maalintaa in la xusaa ma tahay qaab loo weynaynayo waa isku wada fursanna inaynu weynayno laakiin qaababkii layna faray inaynu nebiga u weynayno maalintaa in la xusaa ma ku jirtaa nebigu inooma sheegin isaguna ma xusin saxaabadii la joogtayna ma xusin taabiciintii ka dambaysana ma xusin madaahibta afarta ah culammadaynu ku naqaanayna may xusin haddaa xaggay ka timi waa dambay muslimiinta badh ay la yimaadeen taarikhyahanada badh imaam almaqriziy fii kitaabihi siduu ku qirinayo waxay soo bilaabantay bay ku tilmaamaan dowla alfaatimiya markii ay joogtay masar dowladdii ka talinaysay cubadiyiinta la odhan jiray qolo shiica ahayd ayaa waxay keentay 6 mawlid 6 birthday mawlidku waa birthday 6 birthday in la xuso nebiga calayhi salaatu wasalaam cali ibn abi aalib faatima xasan iyo xuseen iyo boqorka shantaa inuu noqdo waxa la xusaya lixdaa inuu noqdo waxa la xusaya dowladdii shiicada ahayd baa la riday markii la riday nimankii meesha qabsaday waxay dhahay war shanta shiicadana inaga tuuro nebigana iska xusno shantiina way ka tageen kanna way xuseen culammada wakhtigaa wixii ka dambaysay waxay isweydiiyaan war mas'aladani ma ka mid tahay wixii diintu inoo sheegaysay mise kama mid aha culamada badh waxay idhahdeen war dhibi kuma jirto haddii nebiga la xuso waa kaasi culamo badanina waxay leeyihin war waxani ma soo laakiin anigu hal kalaam kuu sheegayaa waxaasoo dhan ka baxsan haddaad maqasho mas'alada nebigu ma samaynin ama saxaabadii ma samaynin kama samaynin su-aal baan ku weydiinaya nebi maxamed siduu alle u caabuday si ka badan miyaad u caabudi karaysaa maalintaad intii nebi maxamed uu sameeyey dhammayso aan sugu nimaadna bidaca markaa socakaa maaha